السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. maanta wuxuu noqon doonaa cashirkeena qisadii nebi saalex calayhi salaam. markii la halaagay ree caad, ilaahay wuxuu u sakhiray ree thamuud inay ku noolaadaan adduunka. ilaahay waa uu u nimceeyey ree thamuud, waxa uuna siiyey awood aad u badan. markii ay u siyaaday nimcooyinka ilaahay, waxay ku kufriyeen nimcooyinkiisii. waxay guryo ka samaysan jireen buuraha, guryahaasoo aad u qurxanaa. dilalka iyo dulmiga aad ayuu ugu badnaa, waxaana hoggaamin jiray kuwo daalimiin ah. hase yeeshee waxaa ku dhex jiray nin wanaagsan, kaasina waa nebiyullaahi saalex calayhi salaam. wuxuuna ahaa nin aad u wanaagsan. ilaahay waxa uu u doortay nebinimada. yaa ii sheegi karo qoomkiisa? aniga qoomkiisa waa ree thamuud. maasha allah, miyaad la socotaan inuu ahaa jiilkii 8 markii laga soo tiriyo nebiyullaahi nuux calayhi salaam. wuxuu ugu yeeray qoomkiisa inay ilaahay keligii caabudaan, asnaamtana aysan la wadaajin. qaar ayaa rumeeyey, kuwo badanna waa ay beeniyeen. saalaxow, waxaad tahay nin caqli badan, waxaadna tahay nin wanaagsan. waxaan rabnay inaad noo noqoto hoggaamiye, laakiin waxaad leedahay caabuda ilaahigayga. aad ayaan kaaga yaabanahay. waxay rabeen inay caabudaan asnaamta ay caabudi jireen aabbayaashood. waxay ka dalbadeen inuu ilaahigii weydiisto mucjiso, taasoo caddaynayso nebinimadiisa. waxaad ka dalabtaa ilaahigaada inuu buurtaad ka soo bixiyo hashaasoo xaamilo ah. nebi saalex waxa uu weydiiyey, bal haddii uu ilaahay aqbala ducadaasi, miyay aamini doonaan ilaahigaas? waxay ugu jawaabeen, haa. ilaahay waa uu ka aqbalay ducadii nebiyullaahi saalex, waxaana ka soo baxday buurtii hal xaamilo ah. wax yar kadib, hashii waa ay dhashay. dadkii ka mid ah way aamineen ilaahay, mucjisadii ay arkeen daraaddeed iyo ballantii ay horay u galeen. laakiin kuwo badan ma aysan rumaysan ilaahay, waxayna dhibsadeen, colna ay la noqdeen hashii. waxay ahaayeen kuwo doqomo ah. siday u sii beeninayaan markii ay arkeen mucjisadaas? haa, waxay ahaayeen qoom xun, waxayna ahaayeen kuwo madax adag. hasha waxay ahayd hal weyn, waxayna cabbi jirtay biyo aad u badan. hase yeeshee caanaheeda waxay ku filnaayeen ree thamuud dhammaantood. nebi saalex waxa uu ogeysiiyey qoomkiisa inuu ilaahay amray hasha inay ka cabbi doonto ceelka maalinta xigtana ay ayaga ka cabbi doonaan ceelka. hashanu aysan gaarsiinin wax dhib ah. qoomkii gaalada ahaa waxay ka codsadeen nebiyullaahi saalex inuu u soo dedejiyo cadaabka uu sheegayo haddii uu yahay nebi run ah. nebiga waxa uu u cabsaday inay dilaan hasha, waxa uuna xasuusiyey inay tahay
aayad Ilaahay aysan wax dhib ah aysan u geysanin. Laakiin waxba kamaysan maqlin nebiga Ilaahay. Naago qoomkii ka mid ah ayaa waxay ku dhiirigeliyeen 9 nin oo shar badan inay soo dilaan hashaasi. Waa dad xun, maxay u dilayaan hasha mucjisada ah? Waxay ahaayeen kuwa naxariis laawayaal ah. Hashii ayay raad raaceen, waa ay heleen iyadoo ceelkii ka cabayso, waxayna ku bilaabeen inay dilaan. Waramihii ayay ku gameen. Hashii waa ay dhaawacmatay, dhaawiciina waa ay la oroday. Hase yeeshee halkaa kumaysan joogsanin oo waa ay ceyrsadeen, gees walbana waa ay ka soo galeen. Seefihii iyo warmihii ayay la dhaceen. Hashii mucjisada ahayd waa ay dileen reer Thamuud. Nabi Saalax aad ayuu uga murugooday dhacdadaasi, waxa uuna uga digay qoomkiisa cadaab Alle iyo carada Ilaahay haddaysan toobad keenin. Waxa uuna u qabtay 3 maalin. Wuxuuna yidhi, waxaa idiin imaan doono cadaab aad u weyn. Dhammaantiinnu waad ku baabi'i doontaan haddii aadan toobad keenin. Waxay dhaheen, maxaa 3 maalin oo dhan? Haddaba noo keen cadaabka aad sheegayso. Maxaa yeelay waxay u maleeyeen guryahoodii ay ka dhisteen buuraha dushooda inay ka celin doonaan ciqaab walbo. Nabi Saalax waxa uu ku yidhi, xumaanta yaysan inka tan badanine, Ilaahay waa Ghafuuru Raxiime, u toobad keena. Waxay dhaheen, adiga iyo kuwa ku raacsan waan dhibsannay ee naga taga. Waxay u maleeyeen nebiga Ilaahay dil. Waxay ahaayeen doqomo. Alxamdulillaah, waxaa mahad iska leh Allihii naga dhigay muslimiin. Ilaahay waxa uu ku amray inay ka baxaan asaga iyo kuwii raacayba, dib dambana aysan u soo laabanin. Maalintii koowaad wejiyadooda waxay noqdeen jaalle. Maalintii labaadna wejiyadooda waxay noqdeen guduud. Maalintii saddexaad wejiyadii waxay isku beddeleen kuwo aad u madow. Ugu dambayn ciqaabkii waa uu yimid, waxayna isku dayeen inay guryaha ku xaroodaan. Laakiinse Ilaahay waxa uu ku ciqaabay ciqaab aad iyo aad mucjiso u ah. Waxaa ku yimid qayli aad iyo aad uga tan weyn, qaylidaasi oo jijibisay guryahoodii. Dhammaantoodna waa ay ku dhammaadeen qaylidaasi aadka u weyn.